السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta aad joogtaan. insha Allah maanta waxaynu halkan uga hadli doonaa noocyada cabsida ama waxa loo yaqaano foobiyada ama phobias. Foobiyadu waa xanuun kamid ah warwarka iyo walaaca ama wax afka qalaad lagu dhaho anxiety disorder ama waa dareen cabsiyadeed ama baqdin joogto ah. Dadka qaba foobiyada ama cabsida waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ay ka dambeeyaan xanuunkan inuu ku dhaco. Dadka qaar waxay yeeshaan astaamo ay ka mid yihiin cabsid aad u fara badan ama cabsi daran, argagax joogto iyo weliba feejignaan zaid ah. Cabsida haleesha dadka la ildaran xanuunkan waxay noqon kartaa mid ku xiran waqtiyo gaar ah, goobo gaar ah ama waxyaabo gaar ah oo bukaanku si gaar ah uga cabsado inay ku dhacaan, kuwaasoo ku saabsan inuu qofku foobiya ka qaaday waxyaabahaas hadduu sameeyo. Saameynta xanuunka foobiyada ay ku yeelato dadka waxay noqon kartaa mid iska caadi ah ama mid khatar ah. Maxaa sababi kara cabsida ama foobiyada? Waxaa sababi kara xaalado la xiriira deegaanku qofku ku nool yahay, marxaladaha murugada iyo walwalka wata ee qofka uu soo dhexgalo ama uu la kulmo. Waxaa jiri kara dad badan oo caafimaadkoodu taam yahay haddana waxyaabaha qaar ka baqa oo iyaguna cabsidoodu ay zaid tahay. Cabsiduna way kala duwan tahay, qaar ayaa dhib keeni kara, qaarna waa iska caadi. Noocyada cabsida ama foobiyada waxaa jira oo ilaa hadda ururka caafimaadka adduunka ay ogyihiin 100 nooc oo foobiya ah ama cabsi ah, balse waxaa ugu muhiimsan kuwan aan sheegi doono. Nooca koowaad ee cabsida ama foobiyada waxaa loo yaqaanaa acrophobia. Waa cabsi uu qofku ka cabsanayo meelaha qaar iyo xaaladaha uusan qofku ka baxsan karin. Dadka qaba xaaladan waxay ka cabsadaan inay ku dhex jiraan meel dad badan joogaan ama inay guriga banaanka uga baxaan. Waxay neceb yihiin inay xaafadahooda ka baxaan ama meesha ay degan yihiin ka baxaan. Sidoo kale ma jecla inay bulshada dhex galaan. Dadka qaba foobiyada noocan ama cabsida noocan qaarkood waxay la kulmi karaan xaalado degdeg ah sida inay suuxaan ama inay xaaladooda caafimaad halis gasho. Waxay arintan ku dhici kartaa marka ay kulmaan waxyaabaha ay ka cabsanayaan markaasi ama in ay ka baxaan meel ka fog meesha ay degan yihiin oo kale. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa social phobia. Dadka qaba xanuunkan ama ciladan foobiyada waxay dhib kala kulmaan ama cabsi kala kulmaan markii la tegayo meelaha shirarka ama meelaha dadka ay ku kulmayaan oo kale ama meelaha dadku ay isugu imaadaan, munaasabaadka ay dadku markaasi isugu imaadaan oo wax looga hadlayo. Sidoo kale inta ay dadka yaqaanaan umay jecel yihiin inay la xiriiraan oo way ka baqaan meelaha dadka aysan aqoonin oo dadka faraha badan ay joogaan ama meel bulsho aysan aqoonin ama dad badan oo aysan weligood arkin ay markaasi ay joogaan. Si kale hadaan u fasirno, waa dad kaliya jecel in 4 qof ama 5 qof ay is yaqaanaan oo saaxiibada yihiin kaliya inay ku dhex jiraan oo aanan tagi karin meelaha dadku ay ku kulmaan, goobaha dadku ay ku sheekaystaan lagu shaaheeyo, goobaha shirarka iyo kulamada lagu qabto, meelaha dadku munaasabaadka isugu imaadaan iyo xafladaha aad uga baqa. Glossophobia, qofka qaba cabsida noocan ah wuxuu ka baqaa inuu dadka hortooda wax ka sheego, siiba inuu qofku inuu ka baqo in dad badan hortooda uu soo istaago oo wax ka sheego ama uu wax ka dhaho. Dadkaani mushkiladooda waxa weeye ama cabsidooda inay dadka hortooda ka hor hadlaan wixii rabo markaas ha noqoto oo dadka hortooda kama ay hadli karaan. Midda ku xigta waxaa loo yaqaanaa acrophobia. Dadka qaba noocan waxay neceb yihiin inay joogaan meelaha jooga dheer leh sida buuraha dhaadheer, guryaha dhaadheer, buundooyinka dhaadheer, diyaaradda oo kale. Calaamadaha dadkan lagu garto waxay ka mid tahay naxdin fara badan, qofka inuu dareemo naxdin fara badan markuu diyaarad raaco ama markuu buundooyin fuulo ama bridge ama markuu buuraha waaweyn iyo meel kasto oo saraha dhaadheer oo fuulo. Wuxuu qofkaas isku arkayaa markaasi naxdin aad u fara badan. Sidoo kale wareer ama dawaqaad, dhidid iyo weliba dareen inuu qofka markaasi uu soo dhacayo ama inuu miyir daboolmayo oo meesha uu saaran yahay uu ka soo dhacayo ayaa markaasi u sawirmanaysa.
foobiyada ama cabsida joogtada ah waa xanuun qofka saameyn ku yeelan kara maskaxdiisa haddii uu mar walba uu si joogto ah uu foobiya u qabo. Sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in xanuunkan la kala dhaxli karo oo qofka haddii faamilkiisa qof kamid ah uu xaaladan isku arkay isna inuu ka dhaxli karo. Haddaba astaamaha lagu garan karo qofka inuu xaalad foobiya ama cabsi ku sugan yahay waxaa kamid ah argagax ama naxdin badan, wadnaha oo garaaca, neefsashada oo dhib ku noqota, hadalka oo degdeg uga soo baxa, hadalka oo qofka ku xirma, afka oo qalala, labolabo, cadaadiska dhiigga oo siyaada, jirka oo qofku ka dareemo gariir, xanuun uu ka dareemo dhanka xabadka ama feeraha, dawakhaad badan iyo sidoo kale madax xanuun iyo weliba dhidid fara badan. Haddaba yaa khatar ugu jira xanuunkan ama ciladan la dhaho foobiyada ama cabsida? Waxaa la aaminsan yahay in dadka waalidkooda ama eheladoodii hore xaaladan ay qabeen in iyaguna ay khatar ugu jiraan in ay ka dhaxli karaan oo ku dhici karo. Sidoo kale waxyaabaha kale ee qofka ku keeni kara inuu xaaladani uu la kulmo waxaa kamid ah da-da qofka, xaaladaha dhaqaalaha iyo weliba midda bulshada ee qofka. Sidoo kale waxaa laisla gartay in kala duwanaanshiyaha jinsigana ay saameyn ku leedahay xagga cabsiyada. Tusaale ahaan dumarkoo kale waxay si gaara uga cabsadaan xayawaanada, caruurta iyo dadka xaaladahooda dhaqaaleed ay aada u hooseysana badanaa waxay cabsi ka qabaan in ay dadka soo dhex galaan oo ay bulshada ku dhex noolaadaan. Sidee looga hortagi karaa cabsida ama foobiyada? Cudur walba wuxuu leeyahay qaab looga hortago oo kana fiican xagga daaweynta oo waa tii la dhahay alwiqaayatu khayru min cilaaj. wax walba ka hortagooda ayay fiican yihiin intaan la gaarin daawada. Haddaba ciladan foobiyada oo noqon karta mararka qaar xaalad caadiya, mararka qaarna xaalad uu qofka ku sababi karta halis, mararka qaarna xaalad iska caadiya qofka uu la noolaan karo. Waxaa looga hortagi karaa iyadoo qofku iska ilaaliyo waxyaabaha markaasi ku kicin kara inuu cabsado ama inuu ka taxadiro meelaha markaasi uu isleeyahay cabsi ayaad ka qaadi kartaa. Waxaa kaloo looga hortagi karaa qofka inuu ku xirnaado alla subxaana watacaala, sababtoo ah qofka allaha ku xiran waajibaadkiisana ilaaliya wuxuu mar walba ku sugnaanaya amaanada rabbi subxaana watacaala.